وطن عن بطل لهين بدون مركب ودقال محاكو سمعيسا dalka aynu deriska nahay ee Itoobiya oo muddo dheer ku hameeyay sidii ay u burburi lahaayeen qarannimada Soomaaliya oo ay u dhaxal wareejisan lahaayeen badda baaxadda weyn ee Ilaahayna ku manaystay ayaa maanta si rasmi ah bareerahooda u cadeystay dawladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday inaysan jirin sabab ay bilaabad u ahaato oo ay dhisanayso ciidan bad oo casri ah arrimahaas waxaan ka wareystay Cabdicasiis Carab oo ka faalooda siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamka intaanan u gelin wareysiga aan idin la wadaago warbixintii ka soo baxday Addis Ababa Itoobiya oo damacsan inay dhisato ciidan casri ah oo awood leh ayaa go'aansatay inay saldhig ciidan ka dhisato badda cas ama badweynta Hindiya sida uu sheegay taliye ku-xigeenka ciidanka Itoobiya General Birhanu Jula oo la hadlayay wakaaladda wararka Itoobiya ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Ahmed Abiy leeyahay aragti uu ku dhisayo ciidan xoogan oo kuwa badda ah oo ku hubeysan tiknoolajiyad iyo agab casri ah General Birhanu wuxuu xusay inay Itoobiya tahay dal weyn oo leh ciidanka ugu awoodda badan Afrika ayna ka go'an tahay inay cududooda gaarsiiyaan badda inkasta oo aynan lahayn bad waxaynu u dhownahay badda cas iyo badweynta Hindiya xilligan waxaynu goobjoog u nahay dalal badan oo saldhigyo ka dhistay Soomaaliya Djibouti iyo Eritrea ayuu yiri Birhanu oo sii raaciyay waa awoodnaa inaynu dhisano ciidan bad waxaynu u jirnaa badda 60 kiiloomitir wuxuu sheegay inay Itoobiya u adeegsato badda cas sidii ay badeecadaha uga soo degi lahayd oo uga dhoofin lahayd wax soo saarkeeda sidaa darteed ay biyo kama dhibcaan tahay inay dhisato ciidan bad wada tashiyo la xiriira sidii Itoobiya u yeelan lahayd mar kale ciidan bad ayuu xusay inay kula jiraan dalal kale iyo dalalka gobolka ee badda dhaca ee saldhigyada siiyay dalalka shisheeye General Birhanu ayaa hoosta ka xariiqay inay tahay go'aan istiraatiiji ah inay Itoobiya dhisato ciidan bad oo baaxad leh marka aynu saldhig ciidan badda ku yeelano waxaynu awoodi doonaa inaynu hubino faa'iidooyinka aynu badda ka helno sidoo kale taasi waxayna ka caawin doontaa awoodda aynu u leenahay inaynu iska difaacno weerarada shisheeye taasi waa sababta ay ra'iisul wasaare Abiy uga go'an tahay in dib loo dhiso ciidankii badda Itoobiya waa sidoo hadalku u yiri hadalka generaalka oo ah kuwa aan u roonayn dhegaha ummadda Soomaaliyeed waxa kamid aha saameynta aynu leenahay waa inaynu ka tusno badda dalal badan ayaa ka imanaya meelo fog oo badda saameyn ku yeelanaya